السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka ay naga daawaneysaan waa deeqaladan official waa deeqa miskiinta yar iska deeqa aheed mas'uulti weynada dhifran miskiinta yar miday ahaataba waxa marti inoo walaasheen farxiyo laki waxaan leeyahay farxiyo soo dhawaaw waxaan rabnaa ani farxiyo inaan ka hadalo oo laba arimood oo ku saabsan wasiiro inayna u maleynaa xildhibaan ee labada way tahay balaayad islaanta la leeyahay deeqo yaasiin iyo islaan kaleeto ayadana diinta ka hadlayso iyo mid qoomaluud arrimiis ka sheekeynayso aan rabnaa runtii wayna soo damqisay arrintaas qof damiir leh oo diin lagu dhalay oo dhaqan lagu dhalay islaan wax ay u dul qaadan karaan ma ahan wayna ku mahadsan yihiin sida ay uga falceliyeen xukuumadda intii mas'uulka ka ahayd oo meesha fadhisay waana waxaan leenahay waa mahadsantiin mar walbana saas diintiin oo dacal jooga waa idinku bogaadinaynaa sida u xanaaqdeen oo maxaa la yiraahdaa u muujiseen wanaaga waxaana dhihi lahaa aniga fariisuul ha lagu qabto dadka noocaas oo kale soo dhawaa walaashay farxiyo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسؤولة كأمريكا الطالب. أيه يسوي كل شيء. نحن عند الله هاي السود وهذا أصحابته كحرن قلدن. waxaan aad iyo aad ugu xumahay oo aanna inaan kafal celin ka soo bino barnaamijkii maxay aheedo ka dhawaajisay walaashay sida ala socotaan shalay maanta social media haysato culimadii Soomaaliyeed ee ka hadashay waxaan diintana ku fiicneen Soomaalinimadana ku fiicneen haddana maamooyin intay soo istaageen ay yani soo qoreen oo ajenda ay ka dhigayaan aad iyo aad aan uga xumahay maamada la dhaho waaye deeqa yaasiin anigu ma sheegi karo islaan iyo gaal waxay tahay soo maad islaamnimo hadda aniga ma ku sifeen karnaba qof ilaahay iyo diintiisa wax ay maaragtay ay sharciyeysay haddana inuu asaga uu gadaal ka bedelo in wax ka bedelo rabo ma garan karo marka sida uu ku yahay qof islaana waxay rabtaa inay dad badan baadiyeyso waxay rabtaa inay dad badan maxay aheedo ay halaajiso waxaan dhihi lahaa horta dumarka Soomaaliyeed awalan annaga ayayna matashaa waa inaan iska qabanaa inteeda kale waxaan kaloo baaq u dirayaa reerka ay ka dhalatay anigu ma garanayo koray waa reer Soomaaliyeed dadka baarlamaanka federaalka beelaha wax ku darsaday oo isku yimaada beel kamid ayay matashaa qoftaas Soomaaliya oo dhan ayay waxay ku noqotay ceebeysay maxay aheedo islaamka oo dhan ay ceebeysay qabiilka ay ka dhalatayna iska badaa warkiisa marka waxaan dhihi lahay hal iska qabto waa qof aan islaam ahayn islaamnimo kuma sheegi karaan nin iyo nin isku galmoon karo haddii raalli iskaga yihiin way isku galmoon karaan maxay aheedo haddii qofka aan soo qasbin say ku tiri yaa baneeyay teeda kale sinada yaa baneeyay war aniga islaam aan nahay sinana wax xaaraani agteena ka tahay haddii ayadu ay maaragtay waxyaalahaas caado iyo dhaqan ayadu ay taqaan yihiin ya haddii ayada ay caadeysatay in ay maaragtay waxyaalahaas aysan ceeb lahayn caadeysatay inay wax iska jira ay yihiin annaga caadadeena ma ahan umada ka xishootay waxay wadaa haddii aan cadaabta galaanaha la ila galo walaalay waa ku kaliga cadaab kula gali mayno wixii aad kasbatana Allah subhanahu wa ta'ala hortiisa ayaa la tagaysaa marka aniga ragga Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed fidnada ay la wareegayso qoftaan hal iska haddii ayada ay macnaheedu ay dhaqankaas ayada ay lahayd anaga dhaqankaas ma lihin waxaan nahay islaam ilaahay ayaa naqaanaa rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam ayaa naqaanaa marka anagu ma doonayno islaamnimo ku dhalanay insha Allah inaan ku dhimanaa rajaynayna waalidkeena ahay kafrac ahay waxaan nahay dumar dhowrsoon ma doonayno marka in aan maxay aheedo waxyaalaha ay la wareegaysa ay dadka saameeyaan dowladda federaalka aad u maadsiin baarlamaanka way iska qabteen oo wixii yani gudoomiyihii baarlamaanka asagoo ku xishoonay oo haddana wuxuu dhahay ma sheegi karo laakiin haddana waan ku qasbanay soo dhowr joor ayaan diiday wayna ugu soo noqdeen ma fahamtay marka ani waxaan dhihi lahay maxay aheedo gabigeedaba inta xilkana laga tuuro xildhibaanada laga qaado xabsina lagu tuuro fiina abad dad badan oo baas bixi doontaa way u qalantaa mid kale oo maxaa jira magaceeda ma garanaa iyadana dastuurka waxa jira Soomaali badan oo Christian ah dastuurka
waxaa ku jirto in macnaha soomaalinimo uga garaabi karnaa tir dadkaas macnaha kusoo dhaweyn karnaa waxaan dhihi lahay diinteena islaamka inkastoo sax tahay haddana in oo dastuurka laga reebo war dastuurka saxda ah waxbaa kaa qaldana waa diinta islaamka dastuurkoo ilaahay noo dhiga mida ahayn ma jiro waa diinteena islaamka oo na lagu dhaqaayo maxaa way dastuurkan awal balaayo warqadaana loo soo dhiga dhib ku qabnee haba laga saaro kastiiroo diintaa ku jirto mid tiraahdo iyo mid tiraahdo maxaa layirahdaa meel balaaya la iskaga galmoonaya iyo awalaan la yaabanay wiilasha soomaaliyeed oo kaniisiyiinta noqdeen oo balaayada adduunyada iyo yurub joogeen ma soomaaliya haddana dhibaatana loogu keenaya iyo maxaa layirahdaa dadkii xilka loo doortay oo inay ka hadlaan dad masaakiina oo kuwa dabaqay laga soo tuuray gabar masaakiina oo la dilay dhibkii loo geystay intay ka hadli lahayn ee waxay ka hadlayaan yaa awal dhaanaa korta wax xila loo dhiibo gurigeeda xunkaa basuul ka tahay iyo ninkeeda yaa dhaanaaga loo dhiibo xil yaa muslimiin diintan islaamka waxay qabtaa lagu marsiiyay dadkaas ko ani waxaan qabaa ra'yi ahaan dadka oo dowladda aan u sheegaya dadka hadda kulley doorasho iyo waxbaa imaan doona soo maahan waqtigay noqota waxaan dhihi lahaa inay qofka xil loo dhiibaayo lagu soo xusho inuu diin leeyahay akhlaaqiyan ka diyaarsan yahay maahana waa ree hebel dhab soo sii cidaasa iskale inaan la dhihin ilaahay ka cabsada beri adinka waxaa idinka weydiinaya dadka madaxda qofka xilka haysa qofkay keentay amba mas-uuliyaddaas qofka u dhiibaa u qalmin beri isaa wax laga weydiinayaa kuwii naga maqnaay oo maalin kasta social media aan ku arkayn oo kan waa qaniis kan waa lagu farxumeeyey oo naaso isku soo yaal iyo balaayo korka iyo kashkana xanuunaya hooyooyin soomaaliyadana ilaahay ka cabsadaya hooyadii hadday keento maxaa layidhaha dartan waxbaa la sanceynayaa 100 rag dhexdood seef ugu dhahda laakiin damiir xumeeda horta bismillah ala shood yirisataa hal mid qoftaas in la baaro waa wallahi deeqo horta hal dumarka Soomaaliyeed ma wada xumoon soo rag aad u jeedid oo maantay maxay ahayd madaxweynayaasha culimada leh wax walba leh kulli hooyo Soomaaliyeed soo tarbiyeysay in ay hooyo xil qabato aad iyo aad u soo dhaweynaya والله أنا مسؤول لكن إن لقى سارة قبلها لكن ممكن حكومان because ناق وحي هلا بارلمان كده يسيق ويسكو قبصة ماركين لا 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 سوق لكن فيري هل من ناقو هو أفكي وذايقان بقول ناقو في عين هو هلو دي واجران marka dumar badan oo fiican ah jiro dumarka waa dugsiga kaliya ugu wanaagsan oo laga barto hooyo wanaagsan hadii ay soo tarbiyeysay ilmahaas ayada laftirkeeda waxa leena walaashay Allah subhanahu wadada ay ku socoto Allah ka soo maya hadii ilaahay hanuun la doonto Allah hanuuni hadaa hanuun sameeyeen ilaahay kaliya dhibaatada ku koobo ilaahay inaadan islaamka aad galaafan because anaga hadda hooyooyin Soomaaliyeed aan nahay jiilka hadda soo baxayo oo soo hana qaadayo oo maaragtay hadda ilmaha yararka wax aqliga aan lahayn hooyooyinkoodii aan nahay marka cuniga hadeertaan waxyaalaha faqsiga hadii wadankii lagu faafiyo maxaad ka sugay waa fiirso cunugaadi oo aan caqabo lahayn ilaahay numa tuso nugumana keeno ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu u dhexda nooga qabto aqorsabina lagu jiraa hadii aadan Allah rasuulkiisa aadan aqoonin walaal anaga Allah rasuulkiisa naqaanee meelaha dhibaatadaas ay ka jirto ama aad u baahan tahay in aad rag isku galmoonayo ama dumar isku galmoonayo aad aragtid ama ay silsiladu xaraan ka ahayn hadii aad qof aadeysato aad tahay ama aad la qabsato xaas waxaan rajaynayaa inaad meesha aad kala timid aad kula noqotaa anaga islaana nahay teeda kale dadka dhahayo Christianka lagu soo daro maxay ahayd Soomaalida maxaa sugay meel Christian imaaday Christianku diinta islaamku dagaal kula jira Christian Soomaali wax ma kula wax xaq la dhaay ma kula diinta ka bax dalka boolaleey diinta waa nooga baxay ha aada meesha xaq ku leeyahay gaalada oo diinta ka bixisay ha raacad ha karaadsada xaq inta ma kula Christian ani waxaan qaba qoftan Christian waa la kow in laga siiyo wallahi xaq sheegayay waana laga siina dhigiisa laguma baneen waa ina u nasteexaysa waa ina dhahdaa soo laa walaal waxaan wax fiican ma ahan kala imo haduu ka diido ee aliya asaga u taala laakiin se adiga inta iska ilaalin kartid oolaadaada ka ilaalin kartid gaashaan aad ka gali kartid kulay waa inaad kartaa kulay aniga mar walba oo ku fadhiyay inay Soomaali Kristaan wax la dhahay ay maan doonaan oo xil is waraasad doonaan waa waxa loo sameeyay Soomaali Kristaan waa wadankeena in lagu abuuro waaye laakiin waxaan qabaa anaga wax nagu ma lahan naftaadii maalkaaga qofta kugu wada iska dhexlaysa diin qofan kula wadaagin waxay ku qabanaysaa wala arkin ba Soomaa waxa la isku naxariisto waa diinta Soomaa farxiyo
صح ولا haddii uusan diin nala wadaagin dal ma nala wadaaga ما إلهك كمان قلنا marka ilaahay subxaana qaadirka Kristanku intii ilaahay soo hanuun ugu talagalay qofka hadduu gacmaha kala diriri waayo maskaxdu kala diriraa because markuu maskaxda kala diri waayo waxaa tahay hooyo Soomaaliyeed tahay hooyo diin laha tahay hooyo ilmaheeda inay maaragtay ilma akhlaaq loo diin la u noqdaan rabtaa tahay tartiib adigoo gurigaada joogo ilmihi aan ka bixin xitaa waxa arkaysa asagoo baadiyay ilaahay ayaan ka magan galnay dhammaan inta islaamkan ilaahay ayaan ugu yacni inay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay ka badbaadiyo shartii bilaayada ila wareegayaan especially dadka meelaha jiro wallahi khatar cadiima ilmahooda ku sugan annagana waaba nala soo galay ilaahay ha u badbaadiyo annagana allah naga maamul iyo maaragtay xaquuq in wadanka laga siiyo ani ma aaminsani qofkii asagoo weyn oo Soomaaliya oo diin ilaahay hooyadiisa u barbaariyay ee diin ku soo barbaariyay satay inay lacagteedii guri u gaday dirtay ee yiri diintii aan ka baxay ama waa dabada la iga soo koray wallahi waa ayaan daro weyn waa taas asaga dhibaato qabo marka insha Allah ta'ala kulli ala xaal hadalkeenu maanta wuxuu isku soo biyashubanayaa in aan iska qabano gaalada wadankii sida maaragtay maxay ahayd geediyo kale soo talaalmaysa deertaan talaal inuu wadaan haddii aanan salka laga jarinna waxa wax badan halaabayo aad u weyn daadante marka insha Allah ta'ala iska qabano horta habartan ugu weyn cadeysatay oo deeqayaasin la dhahayo laga bilaabo ayada yani dawladda Soomaaliya waxa ku talaa gabigeeda wadanka in laga masaafuriyo xitaa xilli si iska daayay iyo mar dambe ay ka soo muuqato maaragtay in ay noqoto baarlamaanka dhexdiisa ama wasiir ay ka soo dhex muuqato because uma qalanto waxa arag 100 gabdhood oo wanaagsan oo diinta iyo maxay aheedo wanaaga dadkii ku horseedaya oo aan hadana jaamiciyaal oo aqoon la ayaa taagan darbiyadii guryahoodii joogo kuwaas marka insha Allah loo yeerar jeen lahay ayadan hal iska bixiyo aniga hadaan ahayba waaba manuuci lahay naagahaneeto aan asturino surku wada qaawayaho ayaga dhan baad u moodid inaysan dhimanaynin oo noloshaba ayaga loogu talagalay malkamoodku ka leexda la yiri gaar Allah ku riday إن شاء الله برنامج كنا ما أنت سونو إجيها وحيك كلو إن شاء الله لازم سعين زين دونا نقص قردا حان ذلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال لنا الإسقاط إن شاء الله أدور كذا كوبا دنا نسكر على